soo dhawaad saaxiibayaal, sheekadeenna maanta waxa ay daaran tahay sheekada dhacdada ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Saamiya. Saamiya waxa ay ku dhalatay sanadii 2000 magaalada Aabud waxa ay aasaaska nolosheeda ku soo qaadatay halka iyada oo sanadii 2017 timid magaalada Muqdisho marka ay da'deedu ahayd 18 jir. Saamiya waxa ay bartaa Snapchat-ka iska barteen wiil dhalinyaro lagu magacaabo Samir. Samir waxa uu deegaan ku yahay dalka Denmark. Wada sheekaysi iyo isbarasho dheer kadib, Samir iyo Saamiya waxa ay noqdeen dad wada sheekaysigooda isku bedelo dareen partner. Saamiya waa warjirmoogo ma oga waxa ku qarsoon dareenka iyo dabadeed waxa dhici doona wuxuu waayuhu iyo waqtiga markaa u sacabtumo saxayduna uga ekaato qof qurbo joogo markaa dalka dalxiis ku sii ah. Saamiya waxa ay ayada iyo Samir isku fahmeen in ay timaado Nairobi halka si ay markii ugu horeysay ugu kulmaan. Samir iyo Saamiya waxa ay halka wada joogeen xilligii samarka oo idil. Ugu horeyntii marka koowaad waxa ay ku degeen hotel isbuuci koowaad halka ay degnaayeen. Kadib waxa ay u guureen apartment marka uu diyaariyay Samir yar ay markaa saaxiibo ahaayeen sida uu asiga ugu sheegay Saamiya waqtiga. Apartmentiga kaliya ma ahayn apartment normal life-ka dadka ay ku noolaadaan oo waxa uu ahaa Saamiyo mid bedeli doona future-keeda. nolosha apartmentiga waxaa ku wada noolaa Saamiya iyo Samir sida lamaane noloshu ku wada midoobay, waxayna halkaa ku noolaayeen muddo 2 bilood. waxaa markaas soo idlaaday fasaxii Samir iyo waqtigii gabagabada qorshihii Samir uu dejistay. Samir waxa uu dib ugu noqday halkii uu ka yimid. Saamiya 2 bilood ee halka joogeen waxaa lagu qanciyo loo sameeyay guri yar oo kooban oo aan ayaga ahayn iyo asxaabta yar oo markaas Samir watay aysan ogeyn. sida caadiga ah waxaa apartmentigii ku soo haray oo kusii noolaa kusii nagaaday Saamiya 4 bilood ee ka dhineed 6 bil ee sanadka markaa apartmentiga lagu kiriyay. waqtigii kirada kadib Saamiya waxa uu bilaawday mawjado maalin dhanba aan lahayn mugdigo bilaw iyo dhammaadba uu hel u yahay. waxay dhammaanba weyday wax walba contact marka ay ku gaari lahayd ama kula xiriiri lahayd Samir oo markii hore Saamiya ugu tagay lacago kaasha ay nolol maalmeedkeeda ku sii wadato. waxa ay 6 bilood dambe ee sanadka ku dabartay lacagihii markaa pocket money-ga uu siiyay Samir oo markaa dhawayd lacag 6,000 ah. 6 bilood ee dambe sanadka wax contact markaa dhaxmaray ayada iyo Samir midna ma jirin. waxa ayna in badan ku dadaalaysay qaabka ay ku gaari lahayd. waxa uu ka baloogareeyay meel walba ay markaa kala xiriiri karto. waxa ay markaa raadisay asxaab ku nooleed waddanka Denmark. waxay intaaba samaysay dadaal. waxa uu soo cadaatay in dhalashadii uu u sheegay ama waddankii uu ka haystay citizen-ka uusan ahayn mid sax ah oo ahayd mid fake ah oo markaa asiga u diyaariyay in sheekada ayada uu kaga danaysto danta markaa uu u yimid. wuxuu waqtigu isku raba Saamiya waxa ku soo baxay wixii uu qorsheeyay Samir oo ahayd in Saamiya la geeyo barta halaaga qalinjooyinka Dark Web. 2 bilood ee ku noolaayeen apartmentiga dhaqdhaqaaq walba iyo wax walba lamaana dhaxmari karo lagu sameeyay Saamiya waxa ay ka soo wada muuqdeen Dark Web. tiimkii markaa Saamiya looga dhigay asxaab ay ahaayeen Samir dhammaantood waxa ay ahaayeen dad qorshaha qayb ka ah oo markaa contractiga ku wada jiray si Saamiya sumcadeeda loo dhaawaco danta laga leeyahayna laga gaaro. Saamiya ogaanshaha sheekada oo idil markii ay ogaatay waxa ku cadaaday waa bariga ay raadinaysay inuu mar u bariyo oo qofkay 6 bilood oo dhan raadinaysay uu walwalaysay waxa uu ahaa halaagi nafteeda haligi lahaa. waxay maalmo murugootaba Saamiya isu weysan dhiibin mawjadaha halaaga mugdigan uu dheeryahay. waxa ayna halkaa ka gudubtay dhabar adeeg iyo karti ay markaa ayada nafsadeeda siisay si ay uga guulgaarto cadowga nolosheeda burburiyay uguna argudato mar-uun nolosha inta ay nooshahay. sheekada Saamiya oo lagu baahiyay barta Wana Talk waxaa halkaa lagu qariyay halka saxda ah ee Saamiya hadda ku nooshahay, laakiin sheekada waxa ay xusisaa in Saamiya weli noloshu ay nooshahay ayna u nooshahay mar-uun inay ka argudato
cadowgii nolosheeda burburiyey.